Soo dhawaada jaalayaal. Waxaynu maanta isweydiinaynaa maxaa dejin kara qalbiga amase maxaa dejin kara qofka bini'aadamkaahi qalbi ahaan iyo maskax ahaanba. Mararka qaar qofku wuxuu dhex joogaa dad badan laakiin qalbigiisu wuu cidloonayaa. Wuxuu ka qoslayaa bannaanka laakiin gudaha waxaa ka socda dagaal aysan cidina arkayn. Noloshu ma aha mar walba sida aad rabto. Waxaa jira maalmo culus, xanuun aan la sheegi karin, iyo fikir habeenkii hurdada kaa qaada. Laakiin su'aashu waxay tahay maxaa qalbiga dejin kara? Qalbiga qalbiga deggan lacag laguma gato. Maalin keliya laguma helo. Waxaa dejin karaa waa waxyaabo badan oo qofku gudaha ka dhiso. Midda ugu sarreysa waa xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala. Marka qalbigu daalo, marka adduunyadu ka caddaato, marka dadka oo dhan kaa tagaan, Alle keligiis kaa tegi maayo. Ducadu waa nasasho, salaadu waa iftiin, qur'aankuna waa dawo qalbiga bogsiiya. Dad badan waxay raadiyaan farxad meel fog, iyagoo ilaaway in xasilloonidu ka timaado gudaha qofka. Waxyaabaha kale ee qalbiga dejinaya waxaa ka mid ah inaad iska cafiso wixii ku dhaawacay oo dhan, inaad iska daysid fikirka badan, iyo inaad aqbashid in noloshu aysan mar walba qumanayn amase aysan wanaagsanayn. Qof wax walba xakamaynayahay ma jirto. Mararka qaar waxaad samaysaa dadaalkaaga, inta kalena Allah ayaa u daynaysaa. Sidoo kale qalbiga waxaa dejiya dadka wanaagsan, qofku fahmaya, qof markaad murugaysan tahay ku dhahaya wax walba way hagaagi doonaan. Mararka qaar hal eray oo wanaagsan ayaa ka qiimo badan boqolaal hadiyadood. Ha iloobin naftaada, nasasho sii, ka fogow wax kasta oo qalbigaaga dhaawacaya. Dhegayso wax wanaagsan, la hadal Allah subxaanahu wa tacaala, naftaadana rajo sii. Haddaba xasuusnow, roobku marka uu da'o kadib cirku wuu ifaa, dhibka kadibna faraj ayaa yimaada. Qalbigaaga ha u ogolaanin inuu ku dhex dhinto murugo, sababtoo ah qalbiga Alle ku xiran ugu dambayn wuu degaa. Mar kasta oo aad Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaato, waxaad dareemaysaa deganaansho, farxad, dadaal, iyo inaad heshay wax kasta oo aad jeclayd. Sababtoo ah mar kasta oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga farxad geliyo, waxaad dareemaysaa inaad awood u yeelatay inaad heshay dhaxalkii, riyadii, iyo hadafkii aad lahayd inaad heshaa. Waxa ugu mudan uguna horreeya ee lagaaga baahan yahay waxay tahay wax kasta oo aad samaynayso wanaagsan inaad kaga rajo qabto maalinuun Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kugu guuleeyo. Taasina waa midda lama huraanka ah oo looga baahan yahay qof kasta oo raba inuu meel gaaro. Waa mahadsantihiin jaalayaal. Tan iyo intaan ku kulmi doono xalqadaheenna dambe iyo dhiirigelinteena joogta.